madaxweynaha dalka Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ayaa joojiyay in uu ka qayb galo shir ka dhacay qaaradda Yurub isagoo u hakiyay dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda wadankiisa Zimbabwe. Mr. Mnangagwa ayaa lagu waday in uu ka qayb galo shir dhaqaalaha ee Davos ee dalka Switzerland kaasi oo ahaa shir madaxeed uu ku raadin lahaa maalgashiga in uu u helo wadankiisa. waxaana isniintii uu dib ugu soo laabtay dalkiisa. wasiirada xukuumadda ayaa sheegaya xisbiga mucaaradka ee MDC in ay u adeegsanayaan qiimaha shidaalka in ay sare u qaadaan si ay dibadbaxyada rabshadaha leh u sii socdo, balse xisbiga ayaa dawladda ku eedeeyay dilal bini'aadantinimada ka baxsan in ay ku kacayaan. qiimaha shidaalka oo sare u sii kacaya ayaa sababay in dibadbaxyo ay ka dhacaan wadanka Zimbabwe kaasi oo ka dhacay caasimadda Harare, waxaana hay'adaha xuquuqda aadanaha ay sheegayaan in 12 qof lagu dilay weerarka. Mr. Mnangagwa oo ku laabtay dalkiisa ayaa yiri waxaan ku faraxsanahay in uu wadanku degan yahay, shacabkuna ay ku dadaalayaan in ay u shaqeeyaan